Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibuni kwa Star Language Academy. Kusoo dhawaada koorsada Kiswahiliga ee Star Language Academy. Halkan maanta waxaan ka bilaabaynaa koorsadan oo ka kooban 60 cashir looguna talagalay qofkii dhamaystaa inuu si madax bannaan u adeegsado luqadda Kiswahiliga asagoo marka uu tago meelaha looga hadlo ama looga shaqeeyo uusan u baahan doonin wax turjumaana. Casharadan waxay ku bixi doonaan laba qaab oo isku jiro. labadaas qaab waxaa weeyaan marka hore ardayga waxaa la siinayaa video duuban oo soo dhageysanayo laba habeenna wuxuu soo galayaa Zoom live soo markaa uu u baraskareeyo ama uu u hadlo wixii uu bartay maanta cashirkeena wuxuu ku saabsan yahay maamkizi salaamaha aw salaamu wa salaamaha maamkizi aw salaamu salaanta weeye waxaan ku baraynaa maanta 12 hab oo la isku salaamo luqadda Swahiliga salaantu waa taqaanaa luqad kasta waxa uu horeeyo waa salaanta la isbaro waxaan ka bilaabaynaa markaa habka koowaad waxaa weeyaan habari yako iska waran baa lagu dhihi karaa ama habari gani labada mid kale waa lagu dhihi karaa habari yako habari gani iska waran ama habari kaliya lagu dhihi karaa waxaa ku jawaabaysa marka nzuri waan fiicanahay nzuri waan fiicanahay marka enta iyo zaada waa isku qabanaysaa nzuri waan fiicanahay Soomaalidu mazuri bay dhahan mazuri macno kale leedahay halka looma isticmaalo saa la soco habka labaad ee la isku salaamo waxa weeyaan jambo jawaabteeda waxay noqonaysaa jambo bay noqonaysaa jawaabteedana waa jambo habkaasna ayadana la isku salaamaa habka saddexaad ee la isku salaamo waxay noqonaysaa uhaligani iska waran uhaligani xaaladda ka waran uhaligani jawaabteeda waxay noqonaysaa marka njema waan fiicanahay njema waan fiicanahay nashukuru waa mahadsantahay ama waxaad dhihi kartaa asante waa mahadsantahay asante haadan marna waa lagu dhawaaqaa oo asante baa la dhihi karaa marna waa laga tegi karaa asante bay dhahaan dadka inta badan habka afraad ee la isku salaamo waxaa weeyaan hujambo iska waran jawaabteeda waxay noqonaysaa sijambo waan fiicanahay hujambo iska waran sijambo waan fiicanahay wey iyadan marka habkaasna waa la isku salaamaa habka shanaad ee la isku salaamo waxaa weeyaan waa dad badan ta lagu salaamaa hamjambo iska warama hamjambo iska warama hatujambo waa fiicanahay marka iyadana habkan waa dad badan hamjambo hatujambo habka lixaad ee la isku salaamo waxaa weeyaan shikamo waa qof la ixtiraamayo shikamo mama marhaba mwanangu hadaysa marka shikamo mama hooyo iska waran marhaba mwanangu waan fiicanahay wiilkaygii wey marka iyadana waa hab uu ixtiraam ku jiro habka toddobaad ee la isku salaamo waxaa weeyaan mambo iska waran habka waa afsuuq mambo iska waran poa aa leeda marka mambo iska waran poa waan fiicanahay waa afsuuq weeye habkan sideedaad la isku salaamo waxaa weeyaan vipi iska waran safi baa leedahay ama poa xataa waad dhihi kartaa ama nzuri xataa waad dhihi kartaa vipi iska waran safi waa fiican aad dhihi kartaa habka sagaalaad ee la isku salaamo waxaa weeyaan habari za asubuhi subax wanaagsan habari za asubuhi subax wanaagsan waxaad marka nzuri waan fiicanahay asante waa mahadsantahay na wewe je adigana iska waran wuxuu kugu jawaabi karaa marka mzima waan fiicanahay habka tobnaad waxaa weeyaan habari za mchana maalin wanaagsan waxaa ku jawaabaysa marka nzuri waan fiicanahay asante waa mahadsantahay na wewe je adigana iska waran waa habka tobnaad habka 11aad ee la isku salaamo waxaa weeyaan habari za jioni galab wanaagsan habari za jioni galab wanaagsan waxaa ku jawaabaysa marka nzuri waan fiicanahay asante waa mahadsantahay na wewe je adigana iska waran wuxuu kugu jawaabi karaa mzima waan fiicanahay habka 12aad waxaa weeyaan sasa iska waran waa afsuuq ayadana sasa ama saaseni iska warama waa afsuuq marka waxaad haysaa viti waa fiicanahay ama poa labada ku jawaabi kartaa sasa haddii lagu dhaho poa ama viti ama saaseni haddii lagu marka 12 hab ayaa la isku salaamaa cashirada si fiican usoo fahma kana soo qayb galaha cashirada zoomka ah ee markaa lagu sharaxayo lagu baraskaraynayo cashirkan